بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا برنامج كنا استان هالمرة دوغ برتين بونتلاند تي في استوديو جسمال بنا ودن كان أستراليا وبرنامج كم إذا برنامج هذا هالك دوغ برتين استان هالمرة برنامج كنا ما أنت وعن كويجينا تاجر أي في دنيا جالية درير بونتلاند يكون رقم ودن كان أستراليا وكأدن مشاريع إذا السعودة بونتلاند كاس أي وباقين إنه يهاي وح لوجود ضيده laguna farxo iyagoo markaa ku booriyay shacabka reer Puntland midnimadooda iyo sharaftooda iyo dhismaha wadankooda inay ka wada qayb qaataan ballan qaaday iyagu inay markaa ka soo bixi doonaan kaalinta kaga aadan hadii ay yihiin bulshada reer Puntland ee ku dhaqan wadankan Australia dad badan oo halka ka hadlay ayaa waxay u cabirayaan siyaal kala gedisan dareenkooda sida ay markaa u arkaan in mar ay ka degaan airportka Boosaaso International Airport iyagoo ballan qaaday maalgashi iyo waliba ku soo noqoshada wadankii taasina waxay farxad u tahay dadka reer Puntland ee ku dhaqan wadanka gudihiisa barnaamijkan waa kan ee daawasho wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantiin ugu horeyn inaan maanta halka isugu nimaadno inagoo mathalayna jaaliyada reer Puntland ee Australia ku dhaqan maanta halka waxaan isugu nimaadaan ka hadalo laba arrimood mid ugu horeysa waxa weeye inaan u bogaadino dawladda reer Puntland iyo shacabkeeda meel kasta ay joogaan horumarka ay ka sameeyeen meelo badan sida airportka dekada wadooyinka jaamacadda hadda laga dhisayo meesha la yiraahdo baran airport laga socdo hadda oo laga dhisayo meesha la yiraahdo Garowe kulooda waxay muujinaysaa in dadka reer Puntland iyo dawladoodu ay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan dalkooda oo ay ku dadaalaan in horumariyaan ay ilaaliyaan nabadooda ayna ka shaqeeyaan inay abuuraan ilo keeni kara dhaqaale wadanku oo ku shaqeeyo ummadda Soomaalidu ay wax ka faa'iideysto guud ahaan gaar ahaan dadka reer Puntland arinta iyada ah aad baan ugu bogaadinaynaa haddaan nahay dadka qurba joogta ah dadka shacabka oo gudaha jooga iyo dawladooda oo muujiyay wada shaqeyn aad iyo aad muhiim u ah dadka iyo dalka reer Puntland waxaan jeclaan lahayn oo fikradeeda ka dhiibanaya oo ogolaanaya intooda kale dadka intooda kale inay fikradooda ka dhiibtaan waxaa ka bilaabanaya maanta shir laga hadlayo aayaha Soomaalida magaalada Kismaayo shirka isaga ah laba arrimood baa dhinac socda sida la sheegayo mid waxa weeye in lagu noqdo 4.5 sidaan wax lagu qaybsado midna waxa weeye in 4.5 laga gudbo 4.5 xaq ma ahayn xal buu ahaa xalkii la soo dhaaf muddo lagu soo socday ummadda Soomaalida waxay xaq u leedahay inay iyadu ayada ka taliso loo ogolaado dadka jooga magaalooyinka waaweyn tuulooyinka beeraha inay awood u yeeshaan inay soo doortaan qofkii ay doonayeen saadarteed waxaan ku adkeynaynaa dadka annaga wakiilkanaga ah haddaan nahay dadka reer Puntland inaanay soo qaadan wax ka hooseeya in dadka lagu soo doorto degaan oo aan lagu soo dooran 4.5 ama habkii qabaliga ah wadanku maanta waa dhisan yahay wax walba waa laga sameeyay dadkii waa diyaar aqoon bay u leeyihiin karti bay u leeyihiin meelaha dalka intiisa badan nabad baa ka jirta wax xilligan la joogaa wax way xilligii loo gudbi lahaa in la sameeyo in dadka loo ogolaado inay iyagu doortaan qofka ay doonayaan maaha in qof u doorto qofka isaga uu doonayo waa ka baxay salaam alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh sida oo kale ayaan anaguna waxaan jecelahay inaan bogaadino horumarka iyo nabad ka shaqeynta haddaanu lahay jaaliyada Puntland waxaanu runtii u riyaaqsanahay soo dhaweynaynaa horumarka la taaban karo oo maanta ka hirgalay dawladda Puntland State of Somalia waxaa kamid ah airportkii sida quruxda badan loo furay waxaanu leenahay waxaa kamid ah dekada ayada hadda la dhex dhigayo waxaa kamid ah airportada kale sida kan Garowe waxaa kamid ah sida jidadka kan ceel daahir ee Ciragaabo waxaa kamid ah kan Gaalkacyo iyo Garowe isku xirahaya waxaa kamid ah jaamacadda Maakhir oo ayadana laga dhisayo baran waxaas oo dhan annagu jaaliyada waxaanu leenahay oo ku faraxsanahay ilaahay ha hirgeliyo inta ka dhiman waxaan leenahay hambaliyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ka faa'iideysanaysa
gaar ahaanna waxaa kasii faa'iidaysanaya dadka reer Puntland haddaan soo qaado aeroboortka waxaan qabaa 3 arrimood in aeroboorkaas uu aeroboorku noqon karo kow marka ugu horeysa in nabadgelyadiisa la ilaaliyo talabaad wax loo yaqaano inay ka jirto customer service aeroboor wuxuu noqon karaa oo lagu farxi karaa markii si يعني dadka adeeg wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan marka loo sameeyo waxa way airport haduu nabadna helo inta wuxuu ku noqonayaa airport caalami marka waxaanu leenahay hal la iska saaro xil dheeraad ah sida airportkaas uu u noqon lahaa airport dadka gacan dadka oo dhan u adeega oo service fiican u qabta waxa kale oo airportada kamid ah markaanu ka soo degno nadaafadooda airportku waa inuu noqdaa waa bilicda iyo meerarka muraayada laga arkayo sida saaxiibku Cumar sheegay waxaan kale oo rabnaa inaan maanta ayada laftigeeda aan baaritaaro madasha looga talasanayo aayaha Soomaaliya oo Kismaayo ka socota madashaas waxaanu leenahay waa in la isku tanaasulaa waa in dadka madaxda Soomaaliyeed at least wax ka soo saaraan meesha oo wadanka meesha maanta u danta ah in laga xiro sidaan la socono 4.5 dastuuriyan markaan fiirino dastuurka waa dhamaatay dastuurka waxaa ku qoran 2016 4.5 in ay dhamaatay haddaan niraahno maalin walba dastuurkeeni aan jabino ummadda waxaa kala wada sharciga ummad intay sharcigeeda dastuurkeeda u hoggaansato ayay ka sarreysaa ummadaha kale war dastuurkeena aan raacno waxa bedeli kara nidaam degmo lagu soo doorto haddaan la helin one man one vote 92 degmo oo jiray markii dawladii hore kacaanka ayaa lagu heshiiyay dadka Soomaalidana waa wada degaan siyaabo badan ayaa lagu heshiin karaa anagu ma tilmaamahayo Afghanistan baa la yiri oo intaas dagaal ka socdo maantayto waxay galeen inay soo doortaan ayaa wadankooda 100 Taliban wada haysta sidoo kale meelaha shabaab ka jiro waa runtii dariiq la raaci karo marka waxaanu leenahay arintaas yaan loo kala tagin dadka Soomaaliyeed inay wadankoodii iyo caruurtoodii ay aayahooda ay ku noqdaan bay jecel yihiin horumarka in laga shaqeeyo nabad iyo dawlad wanaag iyo good governance ayaa keeni kara in ummad walba in dadkeeni dabada aaday brain drainage ku dhacay inay dib ugu soo noqdaan wadankoodii ka qayb galaan horumarkiisii marka waxaan leenahay intaas iyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ugu bogaadinayaa shacabka reer Puntland dawladda reer Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed horumarka iyo dhismaha kaabiyaasha dhaqaalaha ay mar walba reer Puntland ay ku dadaalaysay waa arrin guud ahaan ummadda Soomaaliyeed anfac u ah gaar ahaan reer Puntland waana kaabiyaasha dhaqaalaha waana horumarka dhaqaalaha guud ahaan geeska Afrika marka waa soo dhaweynay airportkii quruxda badnaa inta ka dhimanna reer Puntland iyo madaxdeeda waa inay u istaagaan si dhameystiraan waxa kale oo muhiim ah qalabeyntiisa waxa kale oo muhiim ah qaabka dadka loo qidmeynayo oo ayadana xishmad weyn u baahan tahay airport caalami oo dhigmo quality-giisa iyo tayadiisa la ilaaliyo taasna waxay saaran tahay dawladda iyo shacabkaba waa in loo wada istaagaa dawladda kaligeed arintaas kuma filna waa in shacab bisil oo garaad siyaasi bisil leh garaad siyaasi dhaqaale leh ayaa loo baahan yahay dawladdana ay horumarkan meelo badan bay u martay meelo badan bay gaarsiisay in ay Puntland xagga dhaqaalaha kaabiyaasha dhaqaalaha laga dhiso sida wadooyinka dekadaha laborada haddana waa aragtay kii ugu horeeyay oo furmay aad baa hidiilay Ingiriis marka arkay dalxiisayaashii u horeeyay oo Boosaaso ka soo degay ganacsade ayaa leh afbalaar iyo rag ka mid ahaa
hawsha abaabuleen waxaa loo baahan yahay ganacsatada reer Puntland in ay maadaama ay helaan fursadahaas oo kale inay uga faa'iideeyaan ummadda kana faa'iideystaan ayaga taasna waa bilicdii iyo horumarkii dalka waxaan kaloo bogaad u jeedinayaa laboorka Garowe oo asna la dhax dhigay madaxdii qaranka reer Puntland dhagaxtay ayadana waxaan rajeynayaa inuu dhaqso dhamaado wadadii Ceel Daahir oo ayadana meel weyn maraysa haddana waxaan qabaa reer Puntland inay u istaagaan waa wada halbowle ah in loo istaago ayada iyo maakhir midda gaalkacyo Garowe oo ayadana meesha ganacsiga u balaaran oo isku xirta dhulka oo dhanba waana u istaagnaa waxa individualka iska deena waxa guud dadka ka dhaxeeya u istaagnaa guul baa idin rajeeyay waxaan bogaadin iyo hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan reer Puntland dhammaan dadka geeska Afrika ku nool oo isticmaali doona airportka cusub ee la furay waxaan leenahay hambalyo waxaan kaloo u mahadnaqaynaa hambalyo gaar u diraynaa madaxdii arinta fulisay oo suura gelisay Cabdiweli Camey gudoomiyaha baarlamaanka raggii wasiirka duulista oo hawsha anigu aan u arko ninka sanadkan si fiican u shaqeeyay hambalyaan leenahay waxaanu aad maaragtay u soo dhaweynaynaa inta dhiman in la dhameystiro dekada airportka Garowe jaamacadda Maakhir wadada Ceel Daahir Teega Garaacad kullu dhammaan ilaaha dhaqaalaha wadooyinka iyo infrastructure oo dhan inay hawshaas siday tahay loo qabto taas waa taas waxaan digniin u dirayaa haddana halka ka faa'iideysanaya madaxda siyaasadda berri musharax isu soo taagi doonta Puntland nin walba waxa uu ku darsan doono hadda hawl galo oo hala yimaado dalka wuxuu ku darsan lahaa ma jirto mar dambe nin iska yimaado oo soo isaga fadhiya waqti ka dhamaado iska taga faroole iyo gaas waa aragnaa waxay qabteen kuwan ku xiga hawl baa laga rabaa meesha wuxuu la imaanaya ku tala galo reer Puntland shacabkana waxa leeyahay inay la xisaabtamaan oo yiraahdaan nin walba oo meesha raba inuu maamulo maxaa noo wadaan shacabow waa dhamaatay waxaad wadaagtaan waa airportka waxaad wadaagtaan waa dekada waxaad wadaagtaan waa wadooyinka waxaad wadaagtaan waa jaamacadaha waxaad wadaagtaan caafimaadka qabiil ma wadaagtaan waxba qabiil ha ku fikirinina dantiinu waa waxa aad wada leedihiin nin kasta oo hunguri ka galo inteydinaan dooran codsiin waxa uu wado halkaas soo dhigo taasna waa maaragtay waa digniin iyo boorin 4.5 iyo Kismaayo 4.5 waa macnaha waa qabiil wax lagu qaybsaday macnaheedu weey qabiilkuna qabiil baa si hooseeyo wax lagu qaybsadaa annagu dadkuna halka wada fadhiya wada qabiil ma naqaan anagu hadda cidna metasha 4.5 kan la sheegayo reer ka ninkan qabiilka la sheegayo annaga reer Puntland ahaan gaar ahaan wala siqaane annaga cidna metasha oo hadda xamar noo fadhida ma jirto 235 wallahi qabiil ay metasha inuu soo jirin nin baa qortay nin walba nin baa qortay oo lacag qortay oo lacag siiyay oo uu shaqeeya inuu soo noo shaqeyn qabiil noogu shaqeyn Puntland ahaan noogu shaqeyn Soomaali ahaan noogu shaqeyn nin isma qortay oo isma hata ku aan ismayn baa qortay geystay meesha nama matalan Cabdulla Ali Gaas dardaaran adag buu qabaa waana ku kalsoonahay shirkaas isaga jira waxaanu ka rabnaa inuu 4.5 noo soo qaadin hadduu noo soo qaado kacdoon dadweyne ha u diyaar garoob Cabdiweli والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبتي هل كان وحنا سجون من أنك ورير أستراليا مثلنا قرب جوكتا رير بنتلان أستراليا أنكم مثلنا وحنا سجون من إنه بوجاد إنه هرمركا إيوه وناقة ترى بدن مامل كمان تنوجا جرب بنتلان وكجاري بنتلان ma soo koobi karno saaxiibadooda dhan baa soo shtiriyay waxtarka iyo wanaagga ay soo sameeyeen mana ahan kaliya dekadaha iyo airportada waxaa jiro horumar badan oo laga gaaray magaalooyinka horumarkooda infrastructure-ka loo sameeyay wadooyinka Gaalkacyo Garowe Qardho waxaa kamid oo kaleeto
kastamka cusub ee laga furayo insha Allah dhawaan inuu howlgalo laga sugayo Galdogob horumarka tirada badan oo aan la soo koobi karin aad baan ugu bogaadinaynaa dawladda administrationka maanta Puntland ka jira in ayadu ay u tahay taariikh u hirgalaysa oo CV-ga buuga u galaysa waxaan marka dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan qurbo joog ahaadeen ee ganacsatada ku bogaadinayna ku amar u sheegaynaa inay horumar ka qayb qaataan inay taageeraan dawladooda inay dhaqaaluhu dhulka ka soo biximay ay waxtar iyo gacan iyo dhaqaale ka geystaan baa loo baahan yahay waxa horumarka inta yar ee banaanka iyo qurbaha laga soo gaaray laga helayo waxa ka badan waxyaabo kale to ama ceelal biyaad ha ahaadeen ama beer ha ahaadeen ama horumarku aad u far badan yahay nin kasto aqoon leh iyo nin kasto dhaqaal hayaba waxaan ka codsanaynaa inuu ka qayb qaato horumarka taas waxaan uga gudbayaa waxaan noqon arinta Kismaayo ayada lafteedu saaxiibaday waxaan ma reebin laakiin sideen ogsoonahay oo nin walba ogsoon yahay wax garada oo aqligiisu taam yahay Soomaaliya markaanu banaanka joogno waxaan ku sheekaysanaa wadankii waa la qabsaday gumeys baa qabsaday amxaara xagga naga soo gashay xagga Kenya baa naga haysta xagga maxaan ku yiraahdaa baan Afrika saac ku sheekaynaa waanu ogsoonahay sababta ku joogaan waa wadan aan sharci iyo nidaam lahayn 4.5 baa nidaam sharci ah waradaynu dulga doonayna inaan ku sijirnana 4.5 dabada haysta ninka 4.5 doonaya waa nin ku doonaya kursi iyo dan gaar ah moogiye nin dan Soomaaliyeed wada ma aha waxaanu marka Soomaali weyn u sheegaynaa hadda doonaysaan horumarka Puntland gaartay oo kale inaad gaartaan 4.5 ka taga waanu leenahay oo raaca dadkeena raaca hadii ilaahay wax doon noogu jirta iyo wax doon Soomaaliya ugu jirta 4.5 ma jirtay wixii kale to xal u noqon karo wadanka horumarkiisa ama looga gudbi karo siyaasadda foosh xun ee muddada lagu soo socday aynu u tashano wadankana taladiisu Soomaali bay sugaysaa ha ka sugnina talada in ajnabi shay in taliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبد الكريم نور محمود waxaan ka ambalyeeynaa guusha ballaaran ee laga gaaray dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso runtii waa guul Soomaaliyeed waa guul Puntland waxa horey loo yiri wixii raku kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan baa la yiri waxaan rajaynayaa wax kale oo badan oo qorshaysan inay iyaguna sidaas oo kale ay u rumoobaan waxaan rajaynayaa guulo ballaaran oo kale oo kuwan oo kale ahi inay halka ka sii socdaan sida garoonka hadda la dhagax dhigay ee magaalada Garowe kan galxayo la filayo ballaarinta dekedaha wadooyinka iyo wixii la mid ah waxaan arintaas u arkaa inay tahay guul Soomaaliyeed oo ballaaran oo lagu talaabsaday oo ku dayasho mudan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay ku dayato oo mas'uuliyiintu ay ku daydaan waxa Puntland ka dhacay horseedna ay u noqoto Puntland waxay horseedaa seemir nabadda Soomaaliya horumarkii bay hadda ku darsatay waxaan rajaynayaa inuu halka ka sii socdo bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ku hadlayo magaca gabdhaha jaaliyadda Australia ee Melbourne ahna ururka Australian Somali Women's Health Care Community Foundation ururka anagoo ka tirsan oo maanta isugu kaaya keentay halka kan gabar walaasheena oo Safiya la dhaho annagoo u hambalyeynayna airportka yagii qiimaha iyo qaaliga iyo sharafta lahaa hambalyo Puntland hambalyo reer Puntland hambalyo ما شاء الله إلهي سبحان قادر أربوركي بركة بدنا الله كديجو بركة أربور بركة يبرواقلا الله كديجو وحن أمة الصومالية ذن وهمبلييننا وهمبليه لنا هاي أربور كاس بوساسة لقى سمية أو غير صومالية ذن ودحيو oo ummadda reer Puntland ay ogolaatay in airportkooda ay Soomaaliya oo dhan ka dhaxeeyaan Cabdiwali Ali Gaas hambalyo madaxda reer Puntland oo dhan hambalyo shacabka reer Puntland hambalyo
ilaahay baa mahad leh ilaahay baana na siiyey nimcadaas waxaana ku helnay odayaasheenna isimada reer Puntland waxaa hambalyada ugu horeysa iskale waan qaldamay odayaasha iyo isimada reer Puntland mabruuq barakallahu fii haddana waxaan ku wareejinahay walaashay Suweys Cali Gaas بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مقعيق وسويد سعيد ويرح وحان هالكان كسلامة يا أمد الصوماليات ميل كستا أي أدونك دافع هذا كجوغان قال أهانا حمص على سلام أدير يا أمد الصوماليات أي ودن كيني كنول قال أهانا وحان عدنا سلامة يا ولا له غير بدلان أو كنول بدلان وحان leeyahay ilaahay xaqiina natusay ha ahaado mid saa u bilowdeen hal airport waxna liigu hambaliyeeyo waa ka weyntihiin ina wax ka badan iyo wax ka faa'iido badan iyo wax ka khayr badan aad ummadda Soomaaliyeed u soo hooyisaan waan ilaahay niiga bariyaa waxaan niiga bariyaa wadanka hal luguma istaago wadanka Soomaaliyeed oo dhan inay gacmaha isqeybsadaan ayaa lagu horumar lagu gaaraa wadankeena maanta wuxuu u baahan yahay ummadeena gees meelay joogto Soomaaliya inay dad dantooda u soo jeesta ay noqdaan waxaan halkaan salaan uga dirayaa Cabdiwali Cali Gaas oo ah ninkii maanta xukunka wadanka noo hayay wax ku oo sida odayaashii ka hore ay sameyn jireen iyo wax la mid ah sameeyay airportna kaliya waxaan ku farxayna ma aha wadankeena isbitaalada iskuulada dekadaha iyo meel kasta waa in laga dhisaa iyo ammaankaba assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u hambalyeeynayaa airportka hadda laga furay Boosaaso ee Bandar Qaasim airport dhammaanna waxaan u hambalyeynaynaa Soomaali weyn meel walba ay joogaan hadda waxaan leenahay hambalyo airportkaas waa u baahnay hadda Soomaali weynna waa ka dhaxeeyaa insha Allah wax ka badan oo ka fiicanna waa u rajaynaynaa ummadda reer Puntland waxaan si gaar ah u salaameynaa madaxweynaheena Puntland Cabdiwali Cali Gaas hambalyaan leenahay dhammaan Soomaaliya oo dhan meel walba ay joogaan assalaamu calaykum anigoo ah Dahabo Gaalooti waxaan u dirayaa shacabka Puntland hambalyo airportka cusub ilaahay waxaan ka rajaynayaa mid lagu barwaaqaysto inuu ilaahay ka dhigo hambalyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ودنيا محمد حاشي وحان أمد الرير بتلاني أمد السوماليين ليهاي أنا قوكو الله مقع السوماليين دارهان dadka reer Puntland waxaan isoo gudbinaa ya hambalyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah Safiya Nuur Xuseen Safiya Nuur horeeye waxaan halkaan caawa isugu imaanay inaan ka hadalno oo u hambalyeeyno horumarka iyo maaragtay horumarka ay gaareen reer Puntland inaan u hambalyeeyno annagoo ah gabdhaha reer Puntland oo sharafta badan waan u hambalyeeynaa reer Puntland talaabada ay gaareen Bandar Qaasim airport iyo horumarka kale ay ku tilaabsadeen iyo hawshay u socoto waxaan u hambalyeeynaa dawladda oo hogaaminaya Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo shacabka sharafta badan oo reer Puntland oo runtii garab istaagay waxaan idin leenahay dawlad hadaa maqashaan sideedaba waa shacabka dawladda waxa laga rabaa dadku shacabka reer Puntland runtii waa dad aad u firfircoon haddii ay helaan wado ay maaragtay maraan haddii ay helaan airport ay ka soo degaan haddii ay helaan dekad ay ka soo degsadaan businesskoodii arrimahooda inta kale iyagaa shaqaysanaya haddii amnigooda la sugo jid loo sameeyo dekad loo sameeyo airport loo sameeyo dadku ayagaa shaqaysanaya shaqadooda iyo arrimahooda kale ayagaa la imaanaya waxaan aad ugu hambalyeynayaa Puntland horumarka ay gaareen amniga ay ku tilaabsadeen hawsha fiican ay ku jiraan airport Bandar Qaasim International Airportna Puntland kaliya ma ahane Soomaaliya oo dhan guul u soo hoyatay weeye Soomaaliya oo dhan baan ugu hambalyeynaa horumarka ay gaareen waxaan idin leenahay reer Puntland sharaf iyo ammaan baan idin haynaa halkaas amnigiina iyo shaqadiina iyo taageeradiina iyo hawshiina ka sii wada waan idin salaanay waxaan leenahay hambalyo dhammaan Bandar Qaasim airport Bandar Qaasim airport hambalyo
بسم الله الرحمن الرحيم أنا اللي يراد عنبرة ورسمة إسماعيل اللي يراده وحص سلام يا بلان بان سلام يا تدوين هذا شعب كذا دولة هذا مدحوين هذا نبضون هذا اسم هذا وعقرت كذا كنعس كذا وهذا سلام يا سلامته وحكو سلام يا إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير بلانو واسكو تشطين اسكو تشطا أنا قلنا وايدين مقنعي إن شاء الله مركانو هلا ايرابور مركانو هلا تكت مركانو هلا وطا غير بلان قفك مقنان ما وايد لا تشوقنا وحلالا وحانو هاينو يا وحان هلي كرنو يا وحانو هابا كرنو وايد لا تشوقنا waxaanu ahayn ugaar baanu ahayn waxaanu weynay meelaan ku soo hiranno waxaanu weynay meelaan nimaanno haddaanu ayraboor hello deganna hello waa imaanaynaa diyaar waxalaala waxaanu haynana waa keenaynaa diyaar baa idinla nahay shacabka puntland baan u baaqayaa la shaqeeya madaxweyne dalkiinana u shaqeeya go'aanka uu qaatay madaxweynuhu shacabkuna ha qaato بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u hambalyeeynaa aeroboorkeena baaxadda leh oo sharafta leh oo ilaahayna siiyay baan u hambalyeeynaa iyo dawladda Puntland iyo madaxweynaheena iyo wasiiradeena iyo maamulkeena khayrka qabo duceysan kulli waa hambalyeeynaa ilaahay idankii waxaan ka baryaynaa shacabkeena iyo dawladdeena inaan xaaladdeena dibadaan u aasano wanaag badanna aan kala kulanno ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadgelyo waartana inuu ilaahayna siiyo shaydaankana inuu ilaahay naga xafido sharka inuu ilaahay naga qabto Puntland guul bay u dhalatay Puntland horumar bay gaartay Puntland cirkay maraysaa Allah u siyaadiyo ha tanaado ha barwaaqowdo ha bishaarowdo horay ha u socoto idamka ilaahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وحنكم هذينا إلهي نسي الدولة عادلك أيربورها قروحها بدن مدحنا كلا دنبيسو اسمق ليسه إلهي ما نقوم هنغينا وقوم علينا دولة ديده يا أضياشة يا علماء يا كل علماء دينك أضياشة وسيرة كحجية كل وهم هنغينا إلهي النودايو شعبك وكعة لا شغية دلكين يا دولة دين داد إسكوحي الرادة داد وناكس النقطة أنا قلنا دبت شوكتا يدو وايدين أكدينا وانا إذن لسعنا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي هنا أدي أبشرت إيا خيرك إيو وناقة دولة بوتلاند waa dawlad mudan oo wanaagsan oo is-afgarata oo isku xiran oo dadka dulmiyin waa dawlad aan dulmin garanayn oo ilaahay dulmiga ka dhowray nabadda jeceshahay heshiiska jeceshahay ilaahay idankii siday tahay iyo si ka sareysa ilaahay inuu u aqbalo baan rajaynaynaa goor iyo jeetaasaan rajaynaynaa annaguna waxaan nahay dadkii dibadda idin jira idinkuna oo qurba joogta ah idinkuna waxaa tahay dadkii dawladda ahaa fakara oo fiirsada oo khayrka Allah in aadi salaamu calaykum waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba leenahay hambaliyo shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan horumarka ay ku tilaabsadeen waxaan u hambaliyeenaynaa international badar qaasin airport waxaan idin leenahay reer Puntland oo aad u nasiib badantiin waaye professor عبدولي محمد علي قاس أو بروفيسور مدحوين بعد نصيب ويالتين إنه مدحوين إذين نقضه هدور شنطة سنة أو لما يصير شنطة سنة ولا دورتنا بدل أن لقى السيب وقت تجدونا إن شاء الله نول بوحو سمايستي نول بوحو أو كاميرا دلائنا تاريخ ذي جلسة وإذين هم بلياننا مرة بعد مرة حاد marka labaad waxaan taageeraynaa madaxweynaha iyaga professor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo shacabka reer Puntland dhammaan meesha ka soo ay joogaan go'aankooda baan ku taageeraynaa ay ka qaateen 4.5
haddaan nahay reer Australia qurba joogta Puntland ee reer Australia waxaan taageeraynaa madaxweynahayaga iyo shacabkayaga sharafta badan ee reer Puntland go'aanka ay ka qaateen 4.5 salaamu calaykum barnaamijkeena astaan horumar idinkaga imaanayay stuudiyoga Melbourne waddankan Australia Puntland TV inta ayaan ku soo dhaafaya waxa kamaramaanka iyo dhinaca farsamada hayay Ciise Garawaan iyo Xasan Ahmed dhamaantiin waxaan idinkaga tageynaa nooli kulanta iyo barnaamijyada soo socda ee ka imaan doona Puntland TV waddankan Australia waa Cabdi Cilmi oo idin leh sida iyo nabadgelyo